بسم الله الرحمن الرحيم magacaydu waa Cabdullaahi Siyaad MCA laga soo doortay Lafay waxaan joognaa Mandera County Referral Hospital maanta arrin fool xun oo argagixisa ayaa ka dhacday meel la yiraahdo Xagarsu oo ka tirsan Mandera East Sub County baskii Lafay ilaa Mandera isku kala gooshay ayaa maanta qarax lala beegsaday laba ruux ayaa ku dhimatay Allah u naxariisto ilaa 10 ruuxna dhaawac waay tobankaas ruux shan ka mid ah xaalkooda aad u khatar u yahay marka maanta wixii governor ka deputy governor madaxda county-ga dhan ilaa wixii dhaqtariinta oo county-ga ka shaqeynaya meesha la isku imaaday go'aan waxa la gaaray shantaas ruux in oo diyaarad lagu qaado Amref loogu yeero Nairobi xaalkooda wuxuu yahay marka specialized medical care in loo qaado Nairobi xageed marka arrintaas waa arrin aad u fool xun waana ka xunnahay bari maalmihii hore waxa dhici jiray dadka security-ga iyo dadka dawladdu u shaqeeya in target laga dhigin jiray laakiin hadda dadka shacabka ay isu bedeshay arrintaas waa arrin aad u fool xun arrin aan aqbalayna maaha dadka dhintayna Allah u naxariisto dawladda marka waxaan leenahay dawladda national government ayaa shaqo ku leh dadka inay ilaaliso naftooda iyo xoolahooda waxaan rabnaa shaqadooda inay si fiican u qabsadaan waxa dhacday meeshan Lafay Lungu ka soo bilaaw ilaa Mandera town xarooyin badan oo military ama GSU ayaa ku yaal laakiin weerarkii iyo dadka dhimanayay maalin walba ay socotaa taas waxay tusin in shaqadii xoogaa si fiican aan loo qabanin hadda shali ama daraato nina laga qabsaday Carabiyo ilaa hadda uu maqan yahay nin qaati lama yaqaan marka arrinman macnaa Mandera iyo Relief hadaan nahay ee reefino arrimaas arrin aad u xun waaye dawladdu waxaan rabnaa shaqadooda inay qabsato inta dhimatana Allah u naxariisto inta isbitaalka hadda jeeftana Allah caafiyo ninka la afduubay waxa la yiraahdaa Aftiin Xaaji Cali afar bari ka hor ayaa laga afduubay Carabi asagoo gurigiisa joogo ilaa hadda meeshuu jira lama yaqaan shacab kamid ah Nairobi ku imaaday meeshii Carabi u imaaday aroos ku galay nin aroos sayata marka ilaa hadda xalkiisa lama yaqaan ilaa hadda meel dhinac loo wata lama yaqaan maqrib ayadoo la jooga Allah ninka waa la wata waana la waa ilaa hadda wallahi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ta'ziim meeshan waxaan ugu direynaa maaragtay bulshada maanta ay soo gaartay musiibada maanta waxa dhacday maaragtay baski yimid Lafay kimid oo dad maaragtay passenger wada oo soo socda maaragtay Mandera oo soo socdo ayay maaragtay ay ku dhacday musiibo loo gelay dhaxda maaragtay waxyaalaha qarxa meeshaas waxa ka dhacday laba qof inay meesha ay ku dhinteen maaragtay dad 10 qof gaarayeen maaragtay dhaawac asgaarin waa la gurmaday county government ambulance tii kulli waa la tagay iyo madaxda meesha waa tageen iyo shacabkii waa la keenay maxaa la keenay maaragtay Mandera Referral Hospital labada dhimashada waa xaqiiqo waa dhinteen dadka kalena waxa maaragtay arrintooda qatar ay tahay maaragtay shanta qofna hadda waxaan u organize gareynaynaa oo maaragtay hadaan la xarbinayna in Nairobi loo qaado diyaarada maaragtay Amrefki aan hadaan codsanay in maaragtay sida ugu degdeg badan waqtiga dhow maaragtay in la qaado doon Ilaahay hadii yiraahdo mid kale arrintaani maaragtay jidkaanay ka dhacda Mandera ilaa Lafay dhexdooda ka dhacday in badan ay nuqsaan noqotay arrintaani maaragtay oo qaraxa waqtiyaasha hore waxay ahaan jirtay maaragtay baabuurta dawladda iyo dadka dawladdu shaqeeya kaliya maaragtay la taageed gareysan jiro maaragtay mas'uuliyiinkan ay ku dhici jireen laakiin arrinta haddaani waa arrin ugu beh oo maaragtay anaga kulli aan la fajacsanahay shacab masaakiin oo maaragtay maamooyin masaakiin iyo maaragtay dad oo maaragtay waayeele inay maaragtay maanta maaragtay arrintaani loolo beegsado oo maaragtay dhimashadaan ay dhacdo dadka dhaawaca sakaraadka waxa ku jiro maamo cuuriyaan ha ku jirto had oxygen plant haddaanay ku xiran arrintaas maaragtay waa arrin foolxum aad u foolxun anaga haddaan maaragtay mas'uuliyiintina maaragtay eedan u cambaarinayna mid ugu dambaysa waxaan la hadlaynaa maaragtay nimanka security u xil saaran Mandera ciidanka ugu badan ayaa jooga maaragtay North Eastern markii la dhac ciidanka ugu badan ayaa joogo arrimahan mar walba dhacan mas'uuliyadda waxay ka saaran tahay dawladda inay ilaaliso shacabka xoolihiisa in naftooda inay ilaaliso maaragtay ka saaran tahay dawladda inay ilaaliso la rabaa security waxaan dheeynaa arrimahan inaas ka gaabiseen aanu arkayna jidkaanay maaragtay Umar Jilco Carabiya Finno ilaa Lafay security ugu badan kaambiyaasha ugu weyn joogo ciidan specialized meeshaasi joogo marka mar walba aan maqlayna marka qof baa dhintii meeshana wax ka dhaceen arrintaas waa arrin foolxun waxaan dheeynaa arrimahaasi maaragtay inay maaragtay muxuu ay dhuqsadaan dadka meeshan gelina ay soo bixiyaan dadku way dhamaanahaan meeshan qaar waxa maaragtay waxay u dhiminahaan inay wax dhulka loo gilay ay maaragtay ay dhiminahaan dan waa loola bixiyaa ayagoo jiifa loola bixiyaa meel aadayna ma garanayn dawladda mid kale ka codsanayna waxa waa 3 maalin ka hor nin baa laga qaatay Carabiyo laga qaatay meelaas jir hadda ma garanayn raacida ma fahmi karta waxaan rabnaa dawladda naftinkeeda ninkaas xaalkiisa meesha uu jira inay maaragtay noo sheegto hadda maaragtay dawladda qacanteeda isku jiro inay noo sheegto hadda maaragtay meel kale as jira inay ka soo celiso oo cidiisa ay ku soo celiso taasna ayadan waan codsanaynaa marka waxaan shacabkana ugu baaqaynaa inay jirto waa dareensanahay maaragtay xamaasad fara badan ay jirta dadka maaragtay ciil fara badan asahay inay isdijiyaan wix hadaanay maaragtay wax noo tiray waxa waay inaan meeshan aan imaadno dhiig aan bixino
dadka ma aragtay sidii ma aragtay lagu kaalmeyn lahay dalkooda kale xaan gal wixii kala waxa way ma aragtay anaga mas'uuliyiinta iyo dadka caafimaadka noo dhaafa wixii diyaaradda dadka lagu qaaday iyo ma aragtay sidii lagu meeshaas lagu geyn lahay iyo ka warqabidooda anaga mas'uuliyiinta gacanta kula jiro shacabka daastiin mas'uuliyiinta waxa way ma aragtay inaas meesha naas maadiin dhiig as bixisiin culayska dadka aska kor qaadin taasaan ugu baaqina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdicaziis dhakad macalin maxamed MCA-ga Carabiya waay maanta arrin qaab daran ayaa ka dhacday meel la dhaha Xagarsu baskaas oo bas shicbe oo magaalada Lafey ka soo tagay Saaki oo Mandera u soo socdo oo dad shicib wada ayaa dhaxda loo galay waxaan u maleynaynaa inay arrin oo ID wadada loo gali baskaas oo macalada ay ku dhinteen 2 ruux oo 10 ruux dhaawacayeen marka waa arrin qaab daran marka waxaan u baaqaynaa security agencies Mandera waxa way meel security zaad u joogto askar fara badan ay joogto marka waa nasiib daro in maalin oo subax waa uu bari in baski wadada Saudi qarax wadada loo galay marka waxaan u baaqaynaa security uu ka bilaabo county commissioner the regional commissioner plus interior ministry oo Matiangi inay shaqo ay qabtaan maxay la security Mandera meel ay joogan Kenya malaha marka waxaan rabnaa security in la improve gareey marka waxa kale oo subaxan waag markuu bari governor deputy governor meesha way imaadeen diyaaradan hadda loo codsaday dadka oo maxaa la dhahaa ay sheegtayda oo dhaawac asgari marka wax yar ka bacdi marka xaaladdu stabilize ay noqoto insha Allah waxa loo qaadaa Nairobi